kulankana waxaa mid ka dhacay xarunta jaamacadda Nugaal ee magaalada Laascaanood ayaa waxaa soo agaasimay wasaaradda dastuurka iyo golayaasha Somaliland waxaana ujeedkiisu ahaa in loo qaybiyo bulshooyinka gobolka Sool dastuurka Somaliland munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen wasiirka horumarinta biyaha Somaliland iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay isuduwaha wasaaradda dastuurka iyo golayaasha ee Somaliland ee gobolka Sool Yaasiin Cumar Ciise waxaana uu faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankan waxaad ku soo qaateen hablow culul muhiim ah oo runtii wax badan idinka bedelaysa noloshiina iyo wadanimadii waxa qaran xoojiya waa dastuurkii Jamhuuriyadda Somaliland halkan 10 ku saabsan dastuurka ayaad ku qaadateen oo runtii macallimiin loo tababaray idinku soo bandhigeen waxaan u malaynayaa wax badan maanta inaad ka fahansantihiin dastuurkii Jamhuuriyadda Somaliland oo markii hore aad u fahansanaydeen aad maanta si ka disan u fahansantihiin faqad gaar ayay noo tahay maanta inaan nuqlo ka mid ah idin qaybino dastuurkii oo aad gacanteeda ku jira macallimiin loo carbiyeen ay halkan idinku soo bandhigeen 10 muhiim ah sida loo socotaan barnaamijka shaqo qaran ee la inoo wada sheegay halkan muddo 3 bilood aad ku qaadanayseen annana maanta idinku soo bandhignay nuqlo ka mid ah dastuurka idin qaybinayno 10 ka mid ah dastuurkan aad halkan ku qaadateen waa noo farxad anaga kulay arrintaasi waxaana guriyihiin ku noqonaysaa idinkoo bartay laba waxyaalood oo midtii shaqo qaran ahayd ee muddo 3 bilood idinku tababarayay midna ahayd dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland idinkoo wax badan ka fahansan aad maanta guriyihiin ku laabataa waa ilaahay mahadii baa guritan oo dumar haday meel fadhiyaan oo shaqo qaran lahayd ku guuleysiyay waxaan idin leenahay insha Allah bil milay karin waad aragteen golihii deegaanka hore golaha baarlamaanka way noo taagay insha Allah wixii ilaahay noo qoro nin walba aan kugu wuri rag damba wax odayn mayne nin walba aan ku dumarkiina baa ku leeyahay rag damba wax odayn mayne qataar in rag ka joognaa rag dumarku ay saaminaan guuliyo gobonimo noo rajeynaya intaas oo hablood barnaamijkii shaqo qaran soo gabagabeeyay trainingkeedii maantana baranaya dastuurkii ay ku shaqo gali lahaayeen Jamhuuriyadda Somaliland aad ugu faraxsanahay runtii intaas oo dumar ah oo hablood qurux badan oo maanta baranaya dastuurkoodii farxad weyn bay noo tahay mar labaad iyo mar saddexaad waadna haweenku sidaan nadiif u sheegay ama doona jirin laakiin maanta idinka ayaa u ah hormuud siir waxa halkan fadhiya gabdhii shaqo qaran hawsha oo in badan soo socotay halkan gobolka Sool uu ku lahaa xubno aad iyo aad u fara badan oo rag iyo wiilbale wiilashii muxuu ahaa badankoodii waxba lagu akhriyo muxuu ahaa wax turjumaad khaldan baa loo sheegay laakiin muxuu ahaa magaalada ku nool badana waxay ka cawdaan shaqo la'aan haddii shaqadii soo baxdana afmiishaan meelahan taaganoo shaqana cid aan wax anagu maqnayn oo dibindaabi waduunbaa dadkii tashuus ku fura kullay akhrisaban baa lagu jiraayo beentiyo runtana beentaa dheeraysa maanta inta halka fadhida gabdhood waad aragtaa waanu hambalyeynaa waxaan leenahay hambalyo waa guul weyn baan oran karaa dhinac fikirkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ahaa himiladiisii in ay dhalinyaradu rag iyo dumarba ay helaan tababarka shaqo qaran saynoona darweyna kun wiil baa inoogu xareysan halkan Laascaanood waxaa tababar ku qaada jaamacadda Nugaal 69 hablood oo qayb ka ah hablaha jaamacadaha Somaliland halkan waxay muujinaysaa mudane wasiir in arintani ay ka duwan tahay marka loo eego wiilasha Laascaanood iyo hablaha Laascaanood inay kala aragti duwan yihiin habluhu waxay ka soo baxeen runtii meel adag wiilashii deegaankan ku noolaa sida maayirku sheegayo arinta way ku fashilmeen nasiibkooduna waa u diiday laakiin nasiib wanaag waxaanu ka soo kabanay dhinaca hablaha ka noqotaan qorshaha shaqo qaran ee gabdhaha gobolka Sool waxaan kaloo aad ugu faraxsanahay inaad maanta kulligiin tihiin shaqaale qaran dawladnimadu iyo shaqayntu waxaan u malaynayaa intiina halkan fadhida inay hooyooyin badan idinla soo tacaaleen
meesha laga yaabo in aabbaha mas-uuliyad badani ka dhinayd in hooyooyin badani ay idinla soo tacaaleen mas-uuliyadda waa wax caama oo jira idinkana waxaa laydinka baahan yahay inaad gabdhihiinna iyo wiilashiinna sidaa ula tacaashaan oo wax bartaan waxaad diyaar u tihiin inaad hooyooyin noqotaan intiina badan waqtigii aad hooyooyinka noqon lahaydeen dalkana u shaqayn lahaydeen ummaddana u shaqayn lahaydeen dumarku way ka barodhigtifsan yihiin